maxamed maxamuud cadde oo soo ururiyey xogahan iyo wararka laga qoray ayaa qadka ku jira. maxamed, xaaladda madaxweyne Trump waxaa laleeyahay way adkaanaysaa dhanka siyaasadda iyo dhanka dagaalka. xogtan maxay ku bilaabatay? madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa ku soo food yeeshay laba dhibaato oo aad iyo aad u xun oo khatar gelin kara waxyeello weyn gaarsiin kara meeqaamka oo xisbiga jamhuuriga uu ka gaari lahaa doorashada khadka dhexe ee la qabanayo bisha November, waxayna burburinaysaa taariikhda uu ka tegayo madaxweyne Trump xilliga labaad sida warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ah ay ku waramayso. Trump haddii dhinac laga fiiriyo ayaa waxa uu ku jiraa xaalad aad iyo aad u cakiran marka ay timaado dagaalka waddanka Iiraan oo la mid ah midii uu madaxweyne Jimmy Carter Iiraan ku galay hadda ka hor, iyadoo intii u dhaxaysay 1979kii ilaa 1980kii Iiraan ay gacanta ku dhigtay dadkii ka shaqayn jiray safaaraddii Mareykanka ee magaalada Tehraan ku taalay, markaasoo jamhuuriyadda islaamiga ee waddanka Iiraan ay qaralaase iyo cadaadis siyaasadeed ay ku haysay madaxweynihii markaas jiray Jimmy Carter inta aanan doorashada madaxtinimada la qaban. wargeyska ayaa waxa uu sheegayaa toddobaad ka hor madaxweyne Trump iyo kooxda maamulkiisa ka mid ah ayaa filayay in ay heshiis dib loogu furayo marinka Hormuz ay la gaaraan waddanka Iiraan. saate Iiraan ayaa hadda wax walba u yeerinaysa dowladda Mareykanka oo ahayd dowladda adduunka ugu awoodda weyn. haddana waxaad moodaa shuruudo culus in ay Iiraan ku soo rogtay waddanka Mareykanka. waa gartay. warbixintu waxay sheegaysaa Iiraan inay cadaadis ku hayso madaxweyne Trump. muxuu yahay cadaadiskaasi? Trump ayaa asna sidoo kale waxaa soo wajahaya cadaadis kale oo la xiriira siyaasadda gudaha ee waddanka Mareykanka. saameynta dagaalka uu ku yeeshay ascaarta shidaalka waddanka Mareykanka gudihiisa ayaa ka caraysiinaysa dadka codbixiyayaasha ah oo dhaqaalaha xaggiisa culays badan uu saaran yahay. madaxweynaha ayaa hadda waxa uu galay meerto uunan ka bixi karaynin, iyadoo madaxweynayaashii ka horreeyey iyo saraakiisha kalena ay ku sheegayaan macluumaadyadoo dhan ka soo baxaya saadaasha doorashada inayna indhaheeda wanaagsanayn. dadka codbixiyayaasha waxay arkaan waxba wax isbedelana ma sameynayso, sababtoo ah dhibaato xoog leh ayay ku jiraan sida wargeysku hadalku dhigayo. arrimahan cusub ee soo kordhay warbixinta la xiriirta dadka shaqo la'aanta ay ku dhacday waddanka Mareykanka ayaa lagu sheegay warbixintii jimcihii soo baxday in ay tahay warbixin xisbiga jamhuuriga aanan u wanaagsanayn, iyadoo bisha November ay soo dhowaanayso, sababtoo ah dad badan ayaa shaqo la'aan ku dhacday. waa gartay. marka warbixinta maxay faahfaahin dheeraada ka bixinaysaa xaaladahan soo kordhay? wargeyska ayaa waxa uu tilmaamayaa andacooyashaha madaxweyne Trump in uu meesha ka saarayo sicir bararka ayaa waxay u sharqamaysaa sidii madaxweynayaashii hore ay wax u ballan qaadi jireen. marka la fiiriyo madaxweynahan afkaartiisa ayaa markii hore loo maleynayay in uu qaranka dib u cusboonaysiin ku sameynayo. hadda laakiin madaxweynayaashii hore wax badan kama duwana. toddobaadka dabeeqadiisa guusha uu madaxweyne Trump soo hooyiyey nin senator ah ayaa si dirqi ku soo baxay, horena u ahaan jiray nin qareena Todd Blanche ayaa ku soo baxay in loo magacaabo xogayaha cadaaladda. guushaasi ayaa laga yaabaa in madaxweynaha ay ka farxiso, laakiin dadka codbixiyayaasha lama dhacsana. xisbiga jamhuuriga hadda waxaad moodaa in uu saameyn badan lahayn kadib markii digniino fara badan oo xadgudub la sameeyey oo madaxweynaha waxyaabaha uu mudnaanta siinayo ay tahay in la soo saaro qaanuun lagu xadidayo codbixiyayaasha uu gudbi waayey.
gudaha marka la fiiriyana madaxweynaha waxaad moodaa bishii August in ay tahay bishii ugu dhibka badnayd ee soo martay madaxweynaha, waxaana la qiyaasayaa Netanyahu ayaa diiday guushii laga soo hoyin lahaa marinka Gaza oo qorshihii hubka looga dhigay marinka Gaza ayaa waxaad moodaa inuu carqaladeyn la yimid Netanyahu. madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa leeyahay ama Mareykanka idaacadihiisa ayaa waxay tilmaamayaan caqabado badan oo siyaasadeed ma aha kaliya inay dhibaato yihiin madaxweynaha Mareykanka ku yihiin madaxweynayaashii hore oo dhan ayaa xilliga dhexe marka la marayo dhibaatada la kulmi jiray, kan haba ugu sii darnaaday. waa gartay, waa hagaag. marka dhanka dhaqaalaha ma tahay dhibaato culus oo haysata Donald Trump? sida qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ay hadalka u dhigayaan ayaa nin qoraa ah oo la yiraahdo Aaron Blake ayaa tilmaamaya in codbixintan la qaadayo aaraahdan dadka laga ururinayo ay muujinayaan Trump in uu khalad badan sameeyey marka ay timaado faa'iidadii uu heli lahaa iyo guulihii uu ku tilaabsan lahaa xisbiga jamhuuriga. marka la fiiriyo laba dhinac, waa mare amnigii qaranka oo Iran uu waxba ka qaban layahay iyo dhaqaalihii oo dadkii ay ka cabanayaan shidaalka qaaligiisa iyo shaqo la'aan. Trump waxaad moodaa markii uu xukunka ka degayey waxa uu lahaa awood siyaasadeed, laakiin hadda waxaad moodaa soo noqoshadiisan marka la fiiriyo taariikhda waxay ahayd waxaan la filin, laakiin 2 sanadood ayuu hadda joogaa meesha. sida wargeyska hadalka u dhiganaya November doorashooyinka dhacaysa ma noqon doonaan kuwa asaga dhankiisa u janjeersada. maqaalkana waxa uu xusayaa ama ku doodayaa Trump waxa uu ahaa nin xagga siyaasadda guulo badan ka soo hoyeynayay, laakiin marka la fiiriyo hadda waxa uu ka mid noqday dadkii siyaasadda hore ugu jiri jiray. wixii ka dambeeyay 2016 ilaa laga soo gaaray 2026 Trumpkii ahaa ma aha hadda Trumpkan. hadda waxaa moodaa inuu qayb ka noqday siyaasiyiintii hore iyo siday u dhaqmi jireen. waxaana muuqata in uu difaacayo wixii uu hore u soo sameeyey, iyadoo 2018 ilaa 2020 doorashooyinka la qabtay uu si weyn u guuldaraystay. hadda madaxweynaha waxa uu beenaynayaa in codbixiyaasha dareenkooda isbedelo. Trumpna waxa uu u sheegay warbaahinta toddobaadkii la soo dhaafay dadku aniga ima careysna dadka waxay u careysan yihiin xisbiga jamhuuriga, waxaana muuqata in uu aada iska leexinayo. waa gartay. marka xaaladan haysataa Jimmy Carter tii qabsatay ma u dhigantaa mise waa mid la mid ah? 1980kii Iran ayaa cadaadis weyn saartay madaxweynihii xilligaasi jiray iyadoo wadanka uu doorasho ku jiray kadib markii 52 Mareykan ay Tehran ku xirnaayeen 444 maalmood sida maqaalka lagu xusay. 46 sano kadib xaaladii wax weyn oo iska bedelay ma jiraan, laakiin markaan dad la afduubay ma jiraan. marinka Hormuz ayaa hadda waxaad moodaa inay gacanta Iran gashay oo marin muhiim u ah shidaalka caalamiga ah. tanna macnaheedu waxa weeye in cadaadis kale uu saarnaan doono madaxweynahan Mareykanka iyadoo xilli doorasho lagu jiro. codbixiyaashana aragtidooda waa bedeli doonaan ay ka qabaan madaxweynaha sidii ay Carter uga tashadeen oo kale markii xaaladda dhaqaale ay xumaatay. sida laga soo xiganayo hay'adda shirkadda baabuurta samaysa ee loo yaqaano AAA ama American Automobile Association, galankii oo 3 litir iyo bar in ka badan oo shidaala ayaa hadda waxa uu ka sareeyaa $4. codbixiyaashan aad ayay uga careysan yihiin asxaarta sii kordhaysa maciishada kale iyo shidaalka, waxaana dhib kala kulmayaan in ay guryaha ijaarkooda iska bixiyaan ama caafimaadka ay lacag u helaan muddada fog
arrimahaasoo dhan weeye waxa doorashada dadku ay ku go'aaminayaan. waa gartay haddii marka isla arrimahan aynu ku soconno mas-uuliyiinta maamulka Trump maxay ku difaacayaan mise qiil u heli karaan xaaladdan adag ee haysata Donald Trump? waxaa xusid mudan maamulka Maraykanka ee madaxweyne Trump uu horseed ka yahay saraakiisha ka shaqaynaysa waxay ku celcelinayaan carabkana ku adkeynayaan in culayska uu dabci doono marka marinka Hormuus uu dib u furmo. warbaahinta oo dhanna waxa ay sheegayaan hadalkaasi laga yaabaa inuu xoojinayo mowqifka wadaxaajoodka ee waddanka Iiraan ayaa dalabaadkeeda hadda xoojisay oo ay ku jirto in la soo afjaro go'doominta ciidanka Maraykanka ee badda ay ku hayaan waddanka Iiraan iyo dhammaan ciidamada Maraykanka ee naga bixiyo gobolka Bariga Dhexe, iyo sidoo kale in Maraykanku uu magdhow Iiraan ka siiyo dagaalka una qabatayntana ka qaado. heshiiskaas uma muuqato inuu aqbalayo madaxweyne Trump sida wargeysku hadalku dhigayo, laakiin Iiraan ayaa waxaa laga yaabaa in ay aad iyo aad ugu kalsoon tahay kuna riixayso waddanka Maraykanka arrimo culus. haddii madaxweyne Trump uu dulqaadka ka dhammaado oo dagaalka dib u bilowdo, waxaa laga yaabaa in ay sii dardar geliso colaad aan dadka Maraykanku ay jeclayn, waxayna horseedi kartaa dhaqaalaha sidiisaba inuu kala daato. waa gartay hagaag annagoo gabagabadii ku dhow markaa Maxamed qiimaha shidaalka iyo shaqo la'aanta ka jirta gudaha Maraykanka sidee arrimahaasi u go'aamin karaan doorashada lagu wado November in la qabto? waxaa sidoo kale la isku raacsan yahay Trump inuu isku hadlaynayo adkaysiga dhaqaalaha guud ee Maraykanka uu leeyahay oo istiraatiiji ahaan hadda waxaad moodaa in la ismari la'yahay. xisbiga jamhuurigana waqti badan ma sugi karo inta arrimaha gudaha ee waddanka Maraykanka la xalinayo, sababtoo ah cawaaqibka ka dhashay dagaalka. macluumaadkii maalinta Jimcaha la soo saaray ee shaqada la xiriirtay waxay muujinaysaa in dhaqaale xumo aawadood 23,000 oo qof inay bishii Juulaay oo keliya shaqo waayeen. arrintaasna waxay dharbaaxyo culus ku tahay maamulka Maraykanka, gaar ahaan madaxweynaha Maraykanka. xisbiga jamhuuriga in ololihiisa dib loogu dooranayo ayay culays ku tahay. sidoo kale waxa ay culays weyn ku tahay dadka aanan shaqaynin ee Maraykanka, faraqa u dhaxeeya aqalka cad ee Maraykanka aragtida uu dhaqaalaha ka qabo iyo khibradda dadka caadiga ah ee Maraykanka ay ka qabaan dhibaatada haysata ee waddanka ayaa ah mid aad u kala fog. natiijaduna waxay noqonaysaa mid aanan la dhici doonin oo ah in codka ay ku waayaan xisbiga jamhuuriga, ayuu digniin ku bixinaya khabiirkan. waa gartay marka haddii dhanka kale laga eego Trump ka bixi karaa marka cadaadiskan Iiraan ka haysta iyo dhibaatada gudaha dalka Maraykanka ka taagan? mid ka mida warbaahinta Maraykanka ayaa sheegaysa dhaqaalaha ayaa ah waxa keliya ee madaxweynaha Trump caqabada weyn ku ah. wuxuuna u sheegay barta Axios ee waddanka Maraykanka laga leeyahay dagaalka inuu dhammaan doono. dagaaladana markasta waa dhammaadaan. waa sida ciyaarta shataranjiga oo kale ama chesska oo kale. marka la fiiriyo arrinta Iiraan, guud ahaan qaybaha siyaasadda ee waddanka Maraykanka, qorshaha ugu dambeeya waxa uu noqon doonaa mid aan la fahmi karaynin, sida maqaalkani uu kusoo gabagabeynayo, sababtoo ah madaxweynaha Maraykanka gacantiisa wax ku jira ma jiraan. Axmed, haddii inta aynu kaga gudubno warbixintan, Iiraan qudheeda hadda waxaad moodaa inay ka cagajiidayso Maraykanka inay heshiis la gaarto. ma la oran karaa arrintan waa ku talagal oo waxay doonaysaa ilaa iyo doorashada inta Trump sida hadalka loo dhigay dhiiqada ay gelinayso in xaaladda sidaan ay u sii wado? khabiirada ka tirsan jaamacadda Tehran ee ku takhasusay arrimaha siyaasadda juqraafiyeedka waxay qabaan Maraykanka heshiiskii uu Iiraan la galay maadaama uu ka baxay Iiraan inayna mas'uuliyad ka saarnayn inay heshiiska ilaaliso. dagaalkii 40 maalmood ahaa, kii 13 maalmood 13 maalmood ahaa iyo kii ka sii horeeyay ee sanadkii hore
intaba Iiraan waxay muujisay inay isdifaaci karayso Maraykanka aarahdii uu ka aaminsanaa dagaalka iyo Iiraan muquunin karo ayaa waxay noqotay fashil weyn oo soo baxay oo ay shayda ka fiirsanayaan Shiinaha iyo Ruushka Iiraanna hadda waxaa gashay kalsooni aad u weyn oo Maraykanka awood sheegashadiisii iyo amar ku taagleyntiisa gobolka Bariga Dhexe hadda waxaad moodaa inay soo gurayso oo ay amar ku bixinayso Maraykanka inuu gobolka Bariga Dhexe ka guuro maadaama gantaaladeeda ay meel walba gaari karaan waxaa intaa dheer oo ayadana culayska ku kordhinaysa Maraykanka in marinka Hormuuz waxyaabihii uu rabay iyo wadiiqo kale inuu ka furo Cumaan agteeda waxaad moodaa Iiraan inay gees martay Maraykanka iyo mu'amaradii uu waday inay heshiis la gashay Cumaan oo hadda ay ka wada shaqeynayaan sidii ay isla maareen lahaayeen marinka Hormuuz maraakiibta soo galaya marinka Hormuuz ee aadaya wadamada kale ee sidaalka soo raranaya Iiraan dhankeeda ayaa marayaan kuwaas soo baxayana waxay soo marayaan dhinaca Cumaan dhankeedana waxaa joogi doona oo la socon doona maraakiibta soo baxaysa askar ka socda ciidamada ilaalada kacaanka taa macnaheedu waxa weeye Maraykanka xoog ayuu Maraykanku rabay inuu wax ku maareeyo hadda cudud uunan loodin karaynin oo aan u naxariisanayn ayaa meesha timid waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan daawada si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir aad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo